moogtahay saxaabigii ka soo baxay qabiil dadka oo dhan ka cabsan jireen haddana noqday mid ka mid ah muslimiintii ugu horeeyay waa Abu Dhar al-Ghifari. Abu Dhar al-Ghifari wuxuu ka soo jeeday qabiilkii reer Bani Ghifar. qabiilka reer Bani Ghifar waxay deganaayeen inta u dhaxaysa Makka iyo Madiina. waxay ahaayeen dad ku nool saxaraha safarada maraya ay mararka qaar dhac u geysan jireen. carabtu way ka cabsan jireen qabiilkaas, laakiin Abu Dhar al-Ghifari qalbigiisu wuu ka duwanaa dadka kale. wuxuu necbaa in sanamyada la caabudo. mar walba wuxuu is odhan jiray sidee dhagax aan waxba maqlayn wax loo bareeyaa. maalmaha ka mid ayuu maqlay war cusub. warkaasi muxuu ahaa? nin Maka jooga oo leh alla kaliya caabuda. markaas wuxuu ahaa ninkaasi Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Abu Dhar wuxuu go'aan ku gaadhay in uu war ka soo helo nabiga. maalmaha ka mid ayuu soo diray walaalkii si uu u imaado magaalada Makka oo uu war uga keeno nabiga sallallahu alayhi wasallam. laakiin markii uu noqday walaalkii kuma qancin warkii Abi Dhar uu keenay oo ahaa kaliya inuu sheegay in uu soo arkay nin dadka faraya in Ilaahay caabudaan. intaasna uu sii hayay Abi Dhar, laakiin wuxuu rabay warbixin ka faahfaahsan. taasi waxay keentay inuu isagu imaado magaalada Makka si uu u ogaado nabiga sallallahu alayhi wasallam. wuxuu go'aan ku qaatay inuu isagu imaado magaalada Makka. markaas ayuu safar dheer soo galay. ushiisa ayuu soo qaatay, cunto yarna uu soo qaatay. wuxuuna ka soo baxay magaaladii ay deganaayeen isagoo soo maraya saxaraha kulul ilaa uu ka yimid magaalada Makka. laakiin Makka waqtigaas muslimiinta si daran ayaa loo dhibi jiray. qof walba si fudud kuma tusayn nabiga sallallahu alayhi wasallam. Abu Dhar wuxuu maalmo ku sugnaa agagaarka Kaabada isagoo aamusan oo aan cid la hadlin. halkaas ayuu ku arkay wiil dhalinyaro ah. wiilkaasi wuxuu ahaa Ali ibn Abi Talib. Ali waqtigaas aad buu u yaraa, laakiin caqli iyo xikmad badan ayaa ku jirtay. wuxuu arkay Abu Dhar oo nin shisheeye ah, nin marti ah. markaas ayuu ku yidhi ma marti baa tahay? Abu Dhar wuxuu ku yidhi haa, marti ayaan ahay. Ali gurigiisa ayuu geeyey, cunto iyo biyo ayuu siiyey, nasashana uu siiyey. laakiin su'aalo badan Ali ma weydiin. maalintii xigta ayuu haddana arkay isagii oo weli dadka ku dhex jira. markaas Ali wuxuu dareemay